iyaday ku bahoobeen haweenka la ganacsiyada oo ka dhisan gobolka Minnesota oo magaceeda loo soo gaabiyo Nabo ayaa sanadkiiba waxay abaalmarino siiyaan 10 haween oo reer Minnesota kuwaasi oo leh ganacsiyo kala duwan iyadoo lagu abaalmariyo shaqadooda horumarka shirkadahooda iyo waxyaabaha ay bulshada gobolka ku soo kordhiyaan. 10 haweenka ee sanadkan abaalmarinada la guddoonsiiyay waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Khadiija Cali waxayna Khadiijo leedahay shirkad la yiraahdo Global Language and Staffing Connection. shirkadan ayaa waxay isku xirtaa shaqaalaha iyo shirkadaha doonaya inay qortaan shaqaalaha iyo goobaha u baahan inay helaan turjumaanada ku hadla luqadaha kala duwan. goobahaasina waxaa ka mid ah isbitaalada iyo maxkamadaha. Khadiija Cali waa hooyada 2 caruura waxa ayna ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya laga soo qaaday ee Mareykanka yimid sanadkii 1996 iyadoo waxbarashadeeda dugsiga sare ilaa heerka jaamacadana ku qaadatay dalkan Mareykanka. Khadiijo oo ku faraxsan abaalmarinta la siiyay ayaa ii sheegtay in guusheedu ay ku timid dadaal badan oo ay gelisay sidii shirkadeedu u noqon lahayd mid horumar wanaagsan gaartay. Soomaaliya ma kaymo ama qaxoonti kaymo Mareykan waa meel opportunity ay taalo qofkii ka faa'iideysanaya. marka anigu hadda waliba iskuma maleeyay inaan meel gaari runta fiican goolal iyo vision arintan ka weyn baan leeyahay laakiin ilaahay waxaan ugu mahad celinayaa in la aqoonsaday ama kambanigayga xushmad iyo sharafta la ii yeelay oo la igu abaal celiyay sanadkan 2 mar gudihiisa. Khadiija Cali sidoo kale isla sanadkan 2017 waxay ku guuleysatay abaalmarin ay bixiso jariirada ka faalloota arrimaha ganacsiga ee dhaqaalaha gobolka Minnesota ee la yiraahdo Minneapolis and St. Paul Business Journal. waxayna Khadiija rumaysan tahay in guusha ganacsiga qofku ay ku xiran tahay negaansho, samir iyo dulqaad. arintan waxay ku tusaysaa really haddaad maaragtay qofka bini'aadanka ah uu waqti wax gelisid oo samirna la timaadid because business samir badan bay u baahan tahay iyo waxayna u baahan tahay boodbood uma baahna business markaad bilowdo waa inaad aad iyo aad arinta waqti u gelisid oo samirtid haddaad ilaahay la kaashatidna waad gaaraysaa heer wadan walba aad joogtid bas ay la tahay anigu. haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa abaalmarinta la guddoonsiiyay Khadiija Cali iyo horumarka shirkadeeda u arkaa guul u soo hooyatay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota siday qabto ubax jaamac biixi oo ah hooyo leh 4 caruura macallimadna ka ah dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. waxa weeyaan hooyada Soomaaliyeed iyadoo awalba gurigii iyo ilmihii iyo reerkii soo aasaaska soo dhisaysay ayaa waxaan la kugu daray caawana inaan bilad la siiyo oo walaashin Khadiija bilad la siiyo. intaas waxay ku tahay ku dhiirigelinaysaa gabdhaheena soo kacaya oo raba inay business ka bilaabaan. shirkadda Global Language and Staffing Connection waxa ay sidoo kale shirkadaha ay shaqaalaha u qoraan ka caawiyaan sidii u baran lahaayeen dhaqanka dadka soo galootiga ku ah dalkan Mareykanka oo badana ah dadka ay shaqada geeyaan si meesha looga saaro is-afgarawaa ka yimaada dhinaca dhaqanka iyo kala duwanaanshaha diimaha. sanadkan waxay shirkadu ku guuleysatay inay ka mid noqoto shirkadaha ka shaqeyn doona toddobaadka loogu dabaaldego ciyaarta Super Bowl-ka oo bisha Febraayo ee sanadka soo socda ka dhici doonta magaalada Minneapolis oo ay u tartameen in ka badan 900 oo shirkadood. markii aan runta tan ku sheegay markaan meeting maalintii ugu horeeyay waxaan isiri meeshan meelaad xitaa taaban kartid maaha waan iskaga soo tagay laakiin requirements bay nagu xireen kambanigaygu wuxuu noqday 450 requirement-ka gaadhay marka waxaan la qabanaynaa staffing wax la dhaho kambanigayga hadda shalay ugu horeysay eventyadooda waan bilownay shaqada already contractyada wayna siiyeen waanu bilownay waxaanu u sameynaynaa adigu ugu yaraan 500 qof ilaa 1000 qof laga yaabo baan u hire gareynaynaa. guulaha Khadiija Cali dadka la midka ee Soomaaliyeed waxay fariin u dirayaan dadka necab muslimiinta iyo dadka Mareykanka u soo haajiray waxaana sida jaaliyadu qabaan ay taasi dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ku koraya oo haddii gabar Mareykanka qaxootinimo ku timid ay maanta leedahay shirkad qiimaheedu gaarayo malaayiin dollar in iyaguna ay meel intaa ka fog gaari karaan waaba haddii ay dadaalkeeda la yimaadaan. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.